بسم الله الرحمن الرحيم haddaan rabno inaan ka hadalno sheekada asxaabulkaaf waxaanaan ka fursanayn in aan isweydiino su'aalahan yay ahaayeen asxaabulkaaf tiradoodu imisay ahayd xaggay ka dhacday sheekada ama xagguu ku yaalay godka iyo goormay dhacday iyo ugu dambayntii imisa sano ayay hurdayeen waxaan ku horraynaynaa yay ahaayeen asxaabulkaaf waxay ahaayeen koox dhallinyaro ah oo diinta xaqa ah ee wakhtigaa qaatay oo ahayd diinta masiixiga diidayna in ay caabudaan ilaahyadii iyo asnaamtii boqortooyadii rooma markii lagu ogaaday inay diinta boqortooyada ka baxeen laguna qasbay in ay dib ugu soo noqdaan diinta beritoolena ay madarka ka sheegaan toobadkeenkooda haddii kalena ay la kulmi doonaan cawaaqib xun taas oo ahayd ciqaab iyo dil balse waxay doorteen inay habeennimadii ka baxsadaan magaalada waxaana dhulka xukumayey boqorkii uu magaciisu ahaa gasios mesios quintos trajanos decios oo loo yaqiinay tajan decios oo ahaa mid u geysta dadka diinta rumaysan xasuuq iyo ciqaab aad u xun taa awgeed dhallinyaradu waxay go'aansadeen in si sanqartirasho ah ay uga baxaan magaalada habeennimadii waxayna galeen god ku yiil buur magaalada ka baxsan markaan u imaanno tiradooda qur-aanku ma sheegin inta ay ahayd wuxuuna caddeeyey in tirooyinka kala duwan ee ay sheegaan dadku in ay yihiin kuwo mala awaal ah iyo qiyaas aan loo meeldayin tiradooduna uu allaah keliya og yahay godku halka uu ku yaallo ama sheekadu halka ay ka dhacday ayaa ah su'aal culimmada iyo dadka waxbaaraa ay isku maandhaafaan baarayaasha qaar ayaa sheega waxay ka dhacday magaalada efesus oo ku taalo dalka turkiga haddana loo yaqaano selsuq qaar kalena waxay sheegaan in god ku yaallo dalka jordan uu yahay godkii asxaabulkahf intaa kuma eke qaar kale ayaa sheega in uu godku ku yaal meel ku taal dalka sbain iyo xitaa dalka yeman haddaan u imaano su-aasha ah goormay dhacday sheekada asxaabulkahf sidaan ognahay qur-aanku ma sheegin taariikhda iyo goorta ay dhacday sheekada iyo juquraafi ahaan halka uu godku ku yaallo taa awgeed taariikhyahanadu waxay ku kala duwanaadeen arrintaa inta badan waxaa laysku raacsan yahay in arrinta asxaabulkahf ay dhacday kadib markii nebi ciise nabadgelyo iyo naxariisiba korkiisa ha ahaatee la kor yeelay intii u dhexaysay qarnigii 1 iyo kii 3 wakhtigaa dhulkaa waxaa xukumayey boqortooyadii loo yiqiin alnabaatiyiinta taasoo si xoog ah ula dagaalantay diinta masiixiga sababta oo ah saamayntii diinta masiixiga ee ka soo bilaabantay falastiin oo ku soo siqaysay gobolka ugu dambayntii dadkii diinta qaatay ayaa ka xoreeyey gobolka xukunkii nabaatiyiinta shacabkuna waxay qaateen diintii masiixiga marka aan u imaanno imise sano ayay hurdayeen dhallinyarada qur-aanku waxa uu sheegay in ay hurdayeen 300 oo sano iyo in ay ku darsadeen 9 sano arrintaa oo iyada laf ahaanteed ah mucjiso caddaynaysa in qur-aanku ka ahaaday dhanka alle taasoo micnaheedu yahay in asxaabulkahf inta ay hurdayeen marka lagu tiriyo kalendarka qorraxda ee markaa la isticmaalayay oo ahaa 365 maalmood sannadkiiba waa 300 oo sano balse dadka uu qur-aanku ku soo degay waxay ahaayeen carab waxayna isticmaalayeen kalendarka dayaxa kaas oo ka gaaban kan qorraxda 11 maalmood markaa qur-aanku wuxuu ugu sheegay kan ay isticmaalayeen bacdamaa uu qur-aanku yahay hadalkii alle allahna uu noo sheegay 309 sano waxaan shaki ku jirin in tiradaasi ay tahay mid daqiiq ah marka haddaan isdul taagno tirada 300 oo sano iyo 309ka faahfaahinna ka bixinno si ay u caddaato in qur-aanku mucjis yahay waa sidan kalendarka qorraxda ee ay isticmaalayeen sidaan hore usoo sheegnay wuxuu ahaa 365 maalmood oo gow ah kaasoo marka lagu dhufto 300 oo sano keenaya 109,500 oo maalin kalendarka dayaxa sida la ogyahay bil waxay ku dhammaataa 29 bilna waxay ku dhammaataa 30 lamana saadaalin karo bishan inta ay ku dhammaan doonto sidaa darteed waxaan isticmaalaynaa halbeegga loo yaqaano wareegga 19 sannadlaha ah ee dayaxa kaasoo afka qalaad lagu yidhaahdo the metonic cycle ee cilmiga xidigista oo micnaheedu yahay in 19kii sane ee kasta hal wareeg oo buuxa uu sameeyo dayaxa wuxuuna ku soo noqdaa halkii uu taagnaa 19 sano ka hor tirada maalmaha ku jira
way isla eg tahay mar kasta, waana 6733 maalin. tirada qur-aanku sheegay ee ah 309 sano haddii aan u qaybinno 19 sano oo ah metonic cycleka, kuna dhufanno 6733 oo ah maalmaha uu ka kooban yahay 19kii sano ee kastaba ama metonic cycle kastaba, waxay noqonaysaa 109,499 maalmood dhibic 84. markaa haddaan isbarbar dhigno labada tiro ee 300 oo sano ee kalendarka qoraxda iyo 309 ee kalendarka dayaxa, waxaan arkaynaa inay isla eg yihiin haddaadse u fiirsato farqiga u dhexeeyo labada tiro oo ah 109,500 oo maalin iyo 109,499 maalmood dhibic 84. waxaa kuu muuqanaya farqi ah eber dhibic 16 maalin. sababtuna waa in aysan hurdada dhammaysanin maalintii u dambaysay, waxaana u dhimanaa 4 saac. qur-aanku wuxuu wariyey markii ay hurdada ka tooseen in ay dhexdooda iswaraysteen oo qaarkood dhaheen imise ayaan hurdaynay, qaar kalena ugu jawaabeen waxaan hurdaynay maalin ama wax ka yar. kadibna midkood ayay u dirsadeen suuqa si uu cunto ay cunaan ugu keeno. markuuse magaalada soo gaaray wuxuu dareemay in uu magaalada isbeddel ku dhacay, dhismooyinka iyo dadkuba aysan ahayn kuwii uu yaqaanay. markuu suuqa tegay, dadka iyaguna dhankooda waxay ka shakiyeen qaabkuu u labisnaa. shakigaana wuxuu xoogaystay markuu iibsaday cuntadii. waxa uu ku bixiyey lacagtii uu watay, taa oo ahayd lacag uu ku sawiran yahay boqorkii aan hore usoo sheegnay, waxaana loo geeyey dowladda. markii la waraystayna waxa uu sheegay sheekadii asxaabulkahf. dadku way rumaysan waayeen arrintaa. dad taariikhda og ayaa sheegay in ay jirtay in la waayay dhallinyaro diinta rumeeyey, waxaana loo raacay godka. markay godka tageen, waxa uu ka codsaday inuu isaga horta galo si aysan asxaabtiisa u argagixin. markii wax soo baxa la waayeyna ee godka la galay, waxaa loo tegay iyaga oo dhintay. arrintaana waxay dadkii u caddaysay in qiyaamaha iyo soo saaridda khalqiga ay dhab tahay. sheekadan waxaa markii ugu horreysay lagu wariyey qoraal uu qoray nin la yidhaahdo yacquub oo reer ciraaq ahaa sannadkii 521. qoraalkan waxaa lagu qoray dalka suuriya, waxaana loo turjumay luqadaha giriiga iyo tan laatiinka. qoraalka waxaa lagu sheegay in sheekadu ka dhacday magaalada efesos ee ku taalo dalka turkiga sannadkii 250 dhalashadii nebi ciise kadib. masiixiyiintu waxay sheegaan in godku ku yaallo magaalada efesos sidaan hore usoo sheegnay ee dalka turkiga, haddana loo yaqaano selsuk. waxaana laga yaabaa in ay tahay sababta mufasiriinta muslimiinta ah iyo taariikhyahanada ay godku ugu sheegaan magaalada efesos ay salka ku hayso warinta masiixiyiinta. waxaa laga wariyey cabdulaahi ibnu cabbaas, allah ka raali noqda ee tafsiirka ibnu jariir, in uu godka asxaabulkahf ku yaallo meel u dhow magaalada ila oo ku taal dalka jordan. culimo badan ayaa rumaysan hadda in godku ku yaallo jordan. caddaymo taariikhi ah iyo kuwa juqraafi ah ayaana tilmaamayo inuu halkaa ku yaal. ugu dambayntii ninka la yidhaahdo moxamed taysiir zabyaan oo reer urdun ah, tafatirana ka ah jariidada ashariica, ayaa sannadkii 1953 ogaaday in uu jiro god ku yaallo buur ku taal meel u dhow magaalada cammaan ee dalka urdun. ay ku yaalaan qabuuro, korkiisana uu ka dhisan yahay masjid. isaga iyo ninay saaxiib yihiin ayaa aaday halkaa. meesha wax jid ah oo loo maro ma lahayn, waxayna sheegeen in ay ku gaareen qardajeex. isagoo ka hadlaya meesha waxa uu yidhi, waxaan ishortaagnay god mugdi ah, waxaana nagu adkaatay in aan galno. waxaasena hoggaamiyey arijir dhulka kala yaqaano, wuxuuna na tusay qabuuro halkaa ku yiil. godka afkiisa wuxuu u jeeday koonfur. 2 tiir oo dhagax ah ayaa ku yiil. isla markiiba waxaan arkay qoraallo ku qoran 2 tiir oo ku qornaa farta byzantiumka. godka waxaa daadsanaa dhagaxyo iyo derbiyo dumay. qiyaastii 100 mitir meel u jirta godka waxaa ku yiil tuulo lagu magacaabo rajiib. baarayaashu waxay la xiriireen waaxda arkeolojiga. ugu dambayntiina waxay baaridooda ku ogaadeen in godku yahay kii asxaabulkahf. sannadkii 1961 waxay bilaabeen inay qoditaano ka sameeyaan meesha, waxayna heleen lacag ka soo jeeda waqtigii uu dhulka xukumayey boqorkii aan hore usoo sheegnay ee tajan decius. waxayna taa caddaynaysaa in runtii godkani yahay
godka asxaabulkahf. waxyaabaha kale ay ogaadeenna waxaa ka mid ahaa in godka afkiisa uu u jeeday koonfur. marka la eego samayska godka, marnaba qorraxda ma soo gelaynin ee bidixda iyo midigta ayay ka maraysay. waxaa keliya ee soo gelayay godkana iftiinka iyo hawada. sida uu qur-aanku sheegay, dadka waxay ka dhiseen godka korkiisa masjid. markay baarayaasha ka nadiifiyeen dhagxantii iyo dunkii dhoobnaa, waxay ogaadeen masjid ka dhisan godka korkiisa. baaritaano gadaalihii la sameeyeyna, baarayaashu waxay ogaadeen in boqorka dhulka xukumayey wakhtigii asxaabulkahfi hurdada ka kaceen inuu magaciisu ahaa teodososkii labaad, wuxuuna noolaa bilowgii qarnigii 5. qur-aanku wuxuu sheegay asxaabulkahf iyo raqiim. haddaba waxaa isweydiin leh, raqiim waxa ay tahay. aaraa'da ayaa tafaasiirtu ku kala duwanaadeen. baaritaanadanse waxaa lagu sheegay in raqiim ay tahay tuulo ku dhow buurta uu godku ku yiil. waxaana taa caddaynayay in godka meel 100 mitir u jirta ay ku tiil tuulo uu magaceedu yahay rajiib. rajiib waa magaca hadda loo yaqaano tuulada asalka ahayd, sababta oo ah carabta badowda ah ee dhulka deggan xarafka qa waxay u aqriyaan ja. sidaa darteed maamulka gobolka waxay soo celiyeen magacii hore ee asalka ahaa ee ahaa raqiib. haddaba tilmaamaha godkan ku yaala jordan lagama helin godadka kale ee lagu sheegay in ay yihiin godkii asxaabulkahf. intaana waxaan kusoo gabagabaynaynaa sheekadii asxaabulkahf.